in la joojiyo dhaqaalaha tooska loo siiyo Somaliland oo ay beesha caalamku bixiyaan waxa ka mid tahay sanatarada Soomaaliyeed si gaar ah Somaliland baad matasha arintan ma ka fariisatay wali dawladdu wax ma ka weydiisan وأنا قلت أنا كلمة آدم هنا في أشهد وأنا واحد بدل بدكم ويجيني ما مرت بيبدأ نشاط هلا دولة الصومالية وحاليا دولة بدك الصومالية الهاية Somaliland iyo Soomaaliya marka laga hadlayo anigu waxaan aaminsanahay Somaliland iyo Soomaaliya inaanay ishaynin laakiin la kala hayo inta kala haysana waxaan aaminsanahay in loo adeegsanayo siyaasadda Soomaaliya iyo dadka warkooda siyaasadda Soomaaliya arrintan maanta soo baxday in dhaqaalaha Somaliland laga joojiyana anigu runtii shakhsi ahaan senator Nuura waxaan aaminsanahay in arrin dalqaad oo meel ka dhaca ku tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo wixii aan baadigoodaynin muddada badan wanaagii iyo kalgacalkii ummadda Soomaaliyeed inay isu soo noqdaan inay la sii kala fogeynayaan anigu aaminsanahay waxaan ugu baaqayaa dawladda dhexe iyo maamul goboleedadu inaanay noqonin faaris iyo adeegsado Soomaali lagu kala diro Soomaali waxaan rabnaa inay isu soo ururto Soomaali waxaan rabnaa inay isu keeno in qalbi saasi iyo niyad saasi iyo walaalnimo lagu wada joogo laakiin in la sii kala fugeeyo annaga marnaba haddaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland marnaba shacabka u kulmayno mana rabno laakiin waxa la yaab noqotay dawladda ummadda u dhaxaysay hadday ku raacday maamul goboleedyada Somaliland dhaqaalaha laga gooyo taas maamul waa arrimo kale oo siyaasadeed oo aan badageli doono tacadaa soo taagan insha Allah jawaabaan ka bixin doonaa laakiin dawladdu may dhihna la joojiyay waxay dhahday si toos ah macaamilkii ahaa in la joojiyo dalbatay oo dawladda dhexe la macaamilo Somaliland maadaama Soomaaliya wali aysan xurriyad ka qaadanin ama aysan gooni isu taagin sida maamul goboleedyada kale loola macaamilo miyaanay sax ku lahaynta Somaliland waaniga ku sheegay anaga maamul goboleed dadka ka hadlayso maamul goboleed Hirshabeelle Puntland Puntland iyo Koonfur Galbeed Somaliland markii ay 60kii sanatar Nuura Farax Jaamac in la